بسم الله الرحمن الرحيم أرضي دقيقة دكسي جيل الجديد كارهان أرضي دقيقة دكسي جيل الجديد النموذجية كارهان فصلنا اللبعض ويلاليه قبل واحد نقول سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي هاي بريان بواحد نقول سوى جري عرب تلقين هسه هولاديو هسه عروريد بين الشداء يوحي لمده waxaynu maanta dhiganaynaa hees caruureed dad tiraahda maroodi cadhoole heestani asal waa hees caruureed waana hees caruurtu markaynu hees caruureed leenahay macnaheedu waxa weeyaan waa hees caruurtu ay ku madadaalato dadka waaweyn ma qaadaan laakiin caruurta ayaa qaada iyagoo ujeedadoodu ay tahay inay ku madadaashaan bal aan beyd akhriyo ama meris maroodi cadhoole haddii col la sheego cadaada ku meere hashii cosab waatan maroodi cadhoole haddii col la sheego cadaada ku meere hashii cosab waatan waxa kale oo inta inoo raaca hees caruureed dan yar ee caruurtu ay ku maaweelato ereyadeedu isku soo noqnoqdaan ay aad iskugu eegeen war adeerow xaydha gooyo xiidmo dhaafo xiidanka ha goyn war adeerow xaydha gooyo xiidanka ha goyn war adeerow xaydha gooyo xiidmo dhaafo xiidanka ha goyn war adeerow xaydha gooyo xiidanka ha goyn maroodigu waxa weeyaan waa xayawaan waa nooc ka mid ah ugaadha oo aad u weyn waa laga yaabaa inay sawiradiisa wada aragteen maroodi cadhoole waa maroodigii cadhada lahaayo cadhadu waxa weeyaan waa xanuun ku dhaca xoolaha gaar ahaan geela xanuunkaasoo ah cuncun amaba waxay dadka xanuunada ku dhacee la yidhaahdo isnidaamiska oo kale weeyaanoo jidhka ayaa booga noqda marka ay xoolo cadhada ku dhacdo marka waa maroodigii xanuunka cadhada la yidhaahdo qabayow ayuu hadalku dhacaya haddii col la sheega cadaada ku meere cadaadu waa dhirta geed ka mid ah ayaa la yidhaahdaa cadaad waana geed qodaxeed hashii cosab waatan war adeerow xaydha gooyo xaydho waa nooc hilibka ka mid ah waana hilib matala ama u dhow baruurta xaydha gooyo xiidmo dhaafo xiidmuhuna waxa weeyaan waa xubno ku yaala caloosha waana meelaha ay gasho saalada xooluhu amaba saxarada dadku halka ay gasho kiishka ay gasho ayaa la yidhahdaa xiidmo dhaafo xiidanka ha goyn xiidanku waa erey la iskaga darsaday heesta laakiin macno gaara oo uu leeyahay ma jiro waar adeerow xaydha gooyo xiidanka ha goyn intii unbaa lagu soo celceliyay ciyaalku marka ay heestan ku madadaalanayaan way ku luuqeeyaan luuqdooduna qaabkan oo kale ayay u dhacdaa maroodi cadhoole haddii col la sheego cadaada ku meere hashii cosab waatan maroodi cadhoole haddii col la sheego cadaada ku meere hashii cosab waatan heestan heesta xigta ee ah war adeerow xaydha gooyo xiidmo dhaafo xiidanka ha goyn iyadoo marka ay caruurta ku madadaalanayso luuq ay saaraan inta badan male laakiin heesta hore maroodi cadhoole iyaga marka ay luuqda saarayaan luuqdeedu waa habka aynu soo akhrinay ayaa u dhacda halkaa maanta cashirkan ay noogu jooga ardayahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.